assalaamu calaykum. Mashruucii la dagaalanka nuurka ha ka fekerin dherarkeeda ee wax ka ogow damaca maansooniyadda ee dhulka Soomaalida. Waxaan safar gaaban ku imi magaalada London anigoo u socda ka qaybgalka xaflad aroos oo ehelkayga ah. 3 cisho markaan jooga ayuu ila soo hadlay nin ka tirsan urur ka mid ah kuwa sida qarsoon u shaqeeya. Wuxuu igu ballamiyay maqaaxi ku taal South Kensington oo la yidhaahdo Gillies Bakery. waan imi anigoo warwar yar igu jira oo isweydiinaya wuxuu iga rabo. Markaan cabaar fadhiyey ee bun iyo macmacaan meeshii ku cunay aan kolba saacadda hoosta ka eegayo, waxaa sikadiisa ii soo dul istaagay nin caad. wuxuu ii sheegay in la ii soo diray uu ii qaadayo hodheel. waan soo raacay gaarigii. wuxuu ii keenay hodheelka Riverbank Park Plaza oo ku yaala bartamaha London. qof baa ii sii taagnaa albaabka oo si diiran iigu soo dhaweeyay hodheelka. wuxuu ii kaxeeyey qol albaabkiisu ay ku qorneed tirada 322 ama 322. qolkii markii aan galay ayaan sariirta ku dul arkay suud madow, shaadh madow iyo kabo madow. waan maydhay sidii la ii tilmaamay ayaan dharkii madoobaa ku labistay. cabaar ayaan daawanayay London Eye oo toos ugu beegan daaqadda qolka aan ku jiro. waa meel ka mid a meelaha ugu bilicsan magaalada London, dalxiisayaal badanna waa joogaan. galabku waa uu sii dhacayaa, ani weli waxaan taaganahay daaqadda. garaac xoogan ayaa albaabka la iigu soo tumay, haddana waa la iska soo furay. anoo yaaban ayuu igu yidhi, mudane waxaa bilaabmaya soo dhoweyntaadii. waa soo raacay. waxaanu ii fadhiisiiyey miis maro madow lagu sharxay, shaqaaluhu dhammaan dhar madow ay ku labisan yihiin. miiska waxaa saarnaa qamri caas, waraaqad sida saddexagalka u taal oo ay ku qoran tahay Welcome to the Brotherhood, iyo sidoo kale waxaa taala hees macnaheedu yahay Welcome Home. markiiba gabadh dhar madow xidhan ayaa masraxa soo fuushay. waxaabay qaadaysaa heestu midhaheedu ay miiska saaran yihiin. waxaa ka mid ahaa ereyadaas Welcome to where time stands still, no one lives, no one will, born is fall, never seems to change, just elaborate, mentally deranged, dream the same thing every night. I see our freedom in my sights, no locked doors, no windows pared, no things made. My prince seems scared. Keep him tight. It makes him wild. He's getting better. Can't you tell? Leave me pay. Just leave me alone. heeskaasoo laab qaaday kaasoo ilaab qaaday misna cabsi igu abuuray ayuu mid madow ii yimi. isagoo madaxa hoos u fooraraya ayuu igu yidhi, mudane waa kuu diyaar gaadhigii ku qaadi lahaa. dabaqa hoose hodheelka ayuu ii geeyey. waxaa igu sugaya gaadhi kala jiidan. markaan gudaha u galay waxaan kula kulmay saaxiibkay. waan ku naxay oo waxaan ku idhi, war maxay tahay sidani? isna waxa igu halceliyey, waa adigii muddo daba socday inaad nagu soo biirto ee codsigaaga 2 jeer ay diideen Club of Rome iyo Scottish Temple. hadda waxaa timid fursad aad isku muujin karto. haddii aad daacad ka noqoto howlaha lagu igmanayo waxaad heli xubinimo buuxda. magaalada waan kasii baxaynaa. waxaan gaadhnay dhismo dhulka hoostiisa ka dhisan oo aad yaabayso qaabka loo dhisay. saaxiibkay gaadhigii ayuu ku hadhay, adna 2 nin oo xidhan dhar madow ay qoortoodu sudhan tahay. 3 gees cas ayaa intay garbaha ay qabteen ayay ii kaxeeyeen qol madow oo iftiinka qura ay ka baxaya yahay shamac. waxaa goob madow soo fadhiya nin darajadiisu tahay 3 ee ah darajada ugu sareysa maansooniyadda oo magaciisa laygu sheegay Paul Macmillan. wuxuu i weydiiyey inaan ku qanacsanay inaan kusoo biiro ururkooda Dagmaro. adna hore ayaan u aqbalay. habeenkii halkaas ayaa xaflad weyn la iigu sameeyey. 3 habeen kadib anigoo sidii meeshii ugu jira ayuu Paul ii kaxeeyey qol madow. toilet ayaa la igu qabtay gidaarka, waxaana lay tusay qariirad madow oo ay cad yihiin 2 meelood. wuxuu i weydiiyey Paul, 2 meelood ee cad miyaad garanaysaa? waxaan ku idhi mid waa geeska Afrika, ta kalena waa bariga dhexe. Paul ayaa igu yidhi waa dhulka Soomaalida ta koowaad, ta kalena waa Shaam. wuxuu ii raaciyey in qariirada la sameeyey shirkii Berlin ka dhacay ee 1884. wuxuu kale oo ii sheegay arrin argagax igu riday. Paul Macmillan wuxuu igu yiri shirkaas waxaa fadhiyey kii samada ka soo dhacay. markuu arkay inaan fahmin ayuu igu macneeyey, idinku shaydaan ayaad u taqaanaan. wuxuu noo sheegay in dhulka Soomaalida iyo Shaamba ay yihiin 2 nuur ee u baahan in lala dagaalamo si qorshahayga u fulo. la soco qaybta 2 mashruucii la dagaalanka nuurka.